arkay isticmaar oo dhammaaday ayaa badana qof arkay adduunya doxorowday ayaa badana intuu aashi dhaqaaqay ikhtiyaarkiisa socday intuu aashi dhaqaaqay ikhtiyaarkiisa socday abuurkuu dana beertay ayaa badana iniyaa bislaaday warshada baxaya iniyaa bislaaday warshada baxaya ku ibsaada u yeeshay ayaa badana أنا شهر قريو ayaankaygaan ku arkay cadaala dolla ogay ayaankayga ayaankaygaan ku arkay sharcigo loo ekaaday ayaankayga وعليكم السلام ورحمة الله ayaankaygaan ku arkay آدم عبد الرحيم cadaala dolla aday ayaankayga ayaankaygaan ku arkay abaalgud aan shaqaystay ayaankayga intuu aashi dhaqaaqay ikhtiyaarkiisa socday intuu aashi dhaqaaqay ikhtiyaarkiisa socday abuurkuu dana beertay ayaankayga iniyaa bislaaday warshada baxaya iniyaa bislaaday warshada baxaya ku ibsaada u yeeshay ayaankayga soo dhawaada Soomaali weyn dhammaan meel kastoo aad joogtaan dalka iyo dibaddiisaba iyo waqti kastoo aad joogtaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan waxaan idin leeyahay hambalyadaasoo ah in dowladdeenu ay noqotay mar kale cagaheeda isku istaagtay aan yeelanay dowlad la sheegi karo oo ah dowlad maxay dowlad ku tahay waa in ay noqoto u adeegidda bulshadeeda waa tii dadkeeda ay ku kalsoonaadaan ayadana ku kalsoon dowladtaasaa la yidhahdaa iskana qaban karto wax kasto oo dhibaato ku ah sistemka dawliga ama sharciga duulaan ku ah dal iyo dibid marka inaan ka baxnay 30 sano wixii aan arkayni isbadbedelayay nooc kastaba lahaa midabada badnaa inay naga yaraanayaan oo aan u baxayno dowladnimo iyo basayl inaan asaageena sidii u nool yihiin inaan u noolaano aan ka baxno dulligan iyo qabiilka iyo qurunka ma liibaanayaasha lagu liibaano aan ka gudubno aan u gudubno liibaanayaasha liibaanay aakhiriya adduunba waana daashaday qabiil waxna waa ku keeni waynay 30 sano aan iska daba madoobeen qolo meesheedii laga riixaa ma jirto marka sidaa la aligeed cid kasta intii ku filan oo jaanis ah oo ay ugu cilbigi lahayd qabaa'il ay xarash u hayso wayna soo martay marka waxaan leenahay dowladdeenu aan labada gacmood iskugu geysano aan difaacano shacabka Soomaaliyeed annaga ayaa iska leh halweynaa hilib leh dowlada hilib leh dowlada wanaag leh dowlada horumar leh dowlada maxaan ku raahdaa irmaan ah waxa guran waa qabiilka waxa guran
ee aan waxba laga helin waa qabiilka, waxa burbura waa qabiilka, waxa abaarta ah waa qabiilka. qabiil waa inaan ka tagnaa. litacaarufu wixii ka gudubsan waa inaan kasoo horjeesanaa dhammaan shacabka soomaaliyeed dal iyo dibid. sidaa la aligeed ma rabo hadda intaas waa iga muxuu ahaa wadaninimo, dowlad jacayl iyo in ma aragtay dalkayga hagaago, nabad iyo sharaf aan ku noolaado. intaas ayay iga tahay, waa soo jeedin. waxaan rabay inaan ka hadlo gobolka hiiraan. waxaa ciwaan kor igu qoran hiiraan ma qabiil baa, ma gobol baa, yaanan qabiilkiisa ku kalsoonayn. su-aasha kor igu qoran ayaan rabaa inaan guda galo. soo dhawaada, aada u sheergareeyo. waxaan fiirsanaya wax yar ka hor dad badan oo waaweyn oo ka hadlayo baraha bulshada. hiiraana maanta dagaal ka dhacay, xasuuqaa ka dhacay, amisoonaa soo duushay, ciidamadii qaranka dad xasuuqay. waxay xasuuqeen shacabkii reer hiiraan ayay xasuuqeen. aniga hiiraanaan joogaa, caasimadiisiaan joogaa, magaaladii beledweynaan joogaa oo aad taqaaneen. wax dhibaato ah iyo broblem ah oo aan la kulmay saaka ma jirin. ilaa haddana magaalada ka jira ma arkin, lamana kulmin wax caqabad ah. ciidamada dalkan waxbay ii geysanin, ciidamada amisoona waxbay ii geysanin. dhammaan inta ila midkeena waa sidaa. dabcan waa suuragal cid iyada ma aragtay amniga iyo sistemka dawliga lid ku ah oo duulaan ku ah inay caqabad la kulanto. waa suuragal, sababtoo hadday la kulantana ayadaa goobatay oo lugaheeda iyo gacmaheeda iyo afkeeda goobatay. laakiin nin muwaadin soomaaliyeed magaaladiisii degan uu ku dhashay, kasoo jeeday, degan ayaan ahay. kama shaqeeyo wax lid ku ah sistemka dawliga ama dowladeyda lid ku ah kama shaqeeyo. mucaarad kuma ihi. waxaan qabana waxaan aaminsanahay inaan si sax ah aan u wajihi karo wixii iga galo, ama dhaliil ahoo aan qaba si aan ku wajaha inaan heli karaan aaminsanahay. ciddii marka iyada dhibaata goobato, qof walba waxaa la yidhi jidkou marow garabkiisa yaal. ciddii dhibaato goobanaysa iyada lugaheeda ku goobata iyo gacmaheeda iyo afkeeda ku goobata iyo dhaqaalaheeda ku goobata way la kulmeen. ilaahayna waddo wanaagsanaa lagu baryaa, taasaynu kugu siinayaa. laguma abuurin inaad dhibaata ka shaqayso, waxaa lagu abuuray inaad ilaahay ma aragtay caabuddo, rasuulkiisana adeecdo, inaad shaqaysato oo aad rasaq xalaal ah goobato xooggaada ku xamaalata. ama dowlad ha ku shayso shaqo ka xamaalo, ama xamaali noqo, ama beer falo, ama gaadiid muxuu ahay gaadiid ku shaqayso. inaad xoogga dhididkaada xalaashaa cunto ayuu ilaahay raalli ka yahay. waddo kastood ilaahay wax ugu baraydana wuu kugu siinayaa. diinteenna qabto. nin baad arkaysaa xoolo islaameed inuu dhaco, dad uu ma aragtay xaqoodii qaata ayuu ku haminayaa. ilaahayna uu ugu dhabaynaya, waa siinaya, waa ugu sahlaya. inuu dad islaameed dhaca ayuu ku hamiya. maa laga hortaga markaas? ma laga hortagaayo. halkuu xooggiisa inuu wax ku xamaasho uu rasaq ku raadsan lahaa, ilaahay waddadaas wanaagsan wax ugu raadsan lahaa, inuu dad dhaca ayuu hamiyey uu ka raadsaday. inay taasan ugu fududaatay. ilaahay kuma dhibayo, waa siinaya. laakiin maalin baa laga jaraya. waxaan ula jeedaa ciddii wanaagga ka shaqaysa dowladdeeda maxaan ku idhaahdaa ma rabto. ciddii dowladdeeda kasoo horjeesato dhibaato iyo ma aragtay waxaanan jirin oo aan qaanuunka dalka waafaqsanayn ku dacwoonaysana, hadda saakiyaan aragnay. dadna way dhaawacan yihiin, dadna way dhinteen. ilaa hadday lasii taagan yihiin, waana la xasuuqu waa hiiraanaa la xasuuqay. marka
أنا واحد يسوق يون ربع أنا كجوابه وعيته هيران الرير هيران اللي حسوقي ورهيران أنا جو واحد حسوقين مال إذا ما دحوق ذلك الصوماليين إنه وحبي يما جيسن يما جيسن دونان أمي صومني يما جيسن وأكون درس إليه لما قولي أنا ده حيس أمي صوم يعني وحقبت دي دبعته يوقف المجلس إذا ما ذكرن كسيدو كلا لا ما هو ذكر الدول تتكلم حسوقي طبعا هدي جيران أنا ما وحلا حسوقي لكن هدي بجيران أيها أيها شقيستي waxaan ognahay magaalada qayb ka mid inay xirxiran tahay oo ay bishan hadda gabaabsiga ah ay maalinba ka sii dambayso maalin hadday wanaagsanaato oo dadku ay maaragtay ganacsigooda furtaan oo shaqaystaan maalinta kale ay xirred haddana ay u xirnayn system la qaadan karo oo bulshada reer hiiraan ay u dhan tahay ama caqabad ah oo muuqdo oo lagu qabtaysan u xirred ay u xiran tahay dan gaar ah siyaasi danihiisa gaarka ah wato ay u xiran tahay laga shaqaysan layahay waan ka warqabnay cid kasta oo Soomaali ana way ogtahay dalka iyo dibadda cid kasta oo Soomaali oo joogto way ogtahay way ka warqabtaa maxaa ka maqan dadkan wax ka maqan anaga ma naqaano waayo aniga reer hiiraan baan nahay waxa aan ka maqan inoo dadkan walaalahayna ka maqan maxay tahay waa su'aal isweydiin u baahan su'aashaas in badan waa laga hadlay weli way taagan tahay laakiin anagu reer hiiraan ahaan kama hadlin xishood awgiis ayaanan ugu hadlin waxaan u dulqaadan karin marka hiiraan qabiil ma aha xawaadla ma aha hiiraan Soomaali maxamada iskale qabaa'il kasta ayaa degan kuwa hor loo hadda kadib imaan doona ayaa xaq u leh inay degaan cid la cunsuriyeyna iyo cid muxuu ahay dhibaato gaar ah loogu geysan karaa ma jirto Soomaaliya oo dhan baa iskale waa gobol Soomaaliyeed waa dhul Soomaaliyeed waa magaalo Soomaaliyeed waxaan rabnaa marka walaalahayn reer xawaadle magaaladan waa la wada degan yahay reer hiiraana la yiraahdo 14 qabiila degan hal qabiil ay ka yihiin waxa 13 qabiil aan ka maqnayn oo ayaga maanta ka maqanoy goobayeen oo magaaladan u qaribayeen maxay tahay ma isweydiiyeen ma ka hadlaan soo dad sharaf leh oo nala dhashay oo culimo leh oo aqoon-yahano leh oo maxaan ku raahdaa dhalinyaro wax baratay leh oo dumar leh oo dad wax garta leh oo islaam ah oo nala dhashay soo ma aha dadkan soo dad is-cishan karo oo isqabsan kara ma aha maxay tahay waxa ka soo uray oo ka maqan beesha xawaadle waa maxay anaga ma garan karno okay system baa la dhistay dalka federalism uu qaatay shabeellaan wax ku darsanay annaga ayaa madax ka noqonay khaasatan weliba beesha xawaadlaa madaxweyne ka noqotay bilooyin intuu uu joogay sanad asoon gaarin ayaa waxaa dhacday wuxuu ka shaqayn waayey madaxweynihii reer hiiraan oo beesha xawaadlo u dhashay wuxuu ka shaqayn waayey ummadii kale waa u sacbisay wuxuu ka shaqayn waayey ma aha inaan ku soo celiye dad badan oo iga aqli badan oo iga aqoon badan baa ka hadlaya beesha xawaadlo ka shaqayn waayey mid kale ku soo booday oo ay isla ayagii ah ayagaa ku tartamay ninaa ku soo baxay ninkii ku soo baxay sidaas oo kale waa soo dhaweyne Soomaali maxamed intii hiiraan degan iyo intii shabeelle deganayd gacmo furan shaqo wanaagsan la yiri madaxweynahayni buu ah waa jeclayn ayagoo ka shaqayn waay
ayagaa waddada ka xirtay ma soo degi kara beledweyne ayagaa dhahay ciidamadii xoogga dalka soomaaliyeed oo xoog ku soo marsiiyey iyagoo waddada dhooban markaasaanaan u taagneen waa joognay wax noogala sheekaynaa ma aha hadda u dhacayna ayagaa riday si walba ha noqotee 4 sano walaalahayn soo idinkama haynin soo heshiis kuma ahaan shalay maanta haddii cali guudlaaba noqday cali guudlaaba maxaa ka soo uray cali guudlaaba soo wiil soomaaliyeed ma aha soo nin hawiyaa ma aha soo ninaad shalay hogaaminayso kula shaqaynay ma aha cali guudlaaba muxuu qabaa ka soo uray haddii aad daliil qabta ama aad wax tirsanay madaxweyne waaye inaad u yeerato si system oo qaynuunka dalka waafaqsan ma ugu yeeratid oo dhahayd waxaana iga maqanaysii ilaa asaa madaxweyne miyuu kuu diiday waryaa ilaahay yaqaana iyo rasuulkiisa waa maxay caqabadda intaan la eg hiiraan goormay diiday hiiraan maxaa ka maqan caasimadaa la keenaayo waana la faquuqay iyo walaxaa inta ka baxay iyo war haddii wax kaa maqan yihiin maxaan ku caasimadan shalaa saxiixday adiga rabitaankaada aad madaxweynaha saxiixay waa adiga ogaaska saxiixay waa adiga nabadoonka saxiixay waa adiga xildhibaanka saxiixay waa adiga yaa wax weydiinay haddii wax dheeraada aad rabto bal ka shaqshaqo cali guudlaaba ha ku siiyo annaga maa kaa hortaagan annagana daa hiiraankaad sheeganaysaanaha annaga hiiraan waa deegaankan aan ku wada noolnahay oo ilaahayna siiyey xawaadla adoo xawaadla afkaada ku shirtagoo ku dood wixii kaa maqan ku hel ama kuwaa ma qabiilkaaga ku wahan tahay maxaa hiiraanay maxay tahay waa maxa hiiraan waxa annaga aan naga maqneen oo adiga aad raadinaya adaa yaqaane walaalow adoo xawaadla a raadso adoo xawaadlo maxamed goobo wasiirkii arrimaha gudaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed genaraal mukhtaar arfaxaa kuu yimid 20 maalmood oo magaaladan kuu joogay warka tashto maxaan idin doonaa maxaa idinka maqan waa ninkii matalaadda aad ku lahaydeen federaalka asagay baa inaad u timaadaan diideen waa nin mas-uula ummad soomaaliyeed hogaaminaya oo 12 milyan ma aragtay hogaamiya 20 maalmood ay ku qaadatay inuu wax idinka dhaadhiciyo ugu yaraan in aad muxuu ahay mas-uuliyaddiisa ixtiraamtaan oo aad maxaan ku idhahdaa tala sushaan way dhici weyse war wax sheegta ma naqaano waxaad sheegtiin male waayo ummaddan waa la heshiis shalay waxbaa laysku darsaday wixii laysku darsaday waxaada waad haysataa waxaad dheeraadkeena maba lahaba aniga wixiygii baan haystaa kan kaloo walaalkeena wixiisuu haystaa kan kaloo walaalkeena la deg wixiisuuba haystaa wixiin isku darsanay shalay baan kala haystaa wax dheeraad oo soo baxay male waxaagii waad haysataa 12 xildhibaanaad leedahay wasiir ku-xigeenaad leedahay aad maamulkan ku leedahay madaxweyne ku-xigeenkii waa adiga barasaabkii gobolka waa adiga taliyihii ciidanka waa adiga kii booliska waa adiga kii nabad sugidda waa adiga wixii oo dhanba waa adiga cid kugu haysata kugu dhegan male dadkii oo dhan saasay ku daawanayaan nin walba wuxuu iska dhaadhiciyey dadka kama xaniyo badnidiine walaalka kaa burqaato weyn nac kuuma qabee hortaa inuu dhargo ayuu rabaa mahmaha soomaaliyada ah intaasay dadka idinkaga xishoodeen iyo dhibaato inaysan ma aragtay dhicin maxaa dadka idinla dhashay u cusuriyeynaysaa hiiraan maxaa adinkaba ladeen ma dhehe oo ummaddan kaleba markay gadoodaan ama ay wax ka maqan yihiin ayadoo qabiil ah ayay dhaxaan maxaan ku idhaahdaa dowladda waxaasaa nooga maqan haddaan nahay reer binu israafilaan waan ka gadoodsannahay waan ka baxnay meeshaasaan joognaa ilaa nagala xalliyay dhahaan
2012 dadkii ugu horreeyay oo gadooday beesha gaal jecel ay ahayd oo hiiraan kaaga badan adiga ma reer hiiraan ay dhaheen maya ma dhihin magaaladooda yimaadeen xildhibaanadoodii u yeerteen meeshana yimaadeen shiray qabsadeen miidii ka hadleen waxay dhaheen dowladda xasan sheekh waxbaa nooga maqan waxbaan tirsanaynaa hana la xalliyo haddaan la xalinaynin annaguna dee xildhibaanadayni mas-uuliyiintayni waa u yeeranay state gaar aan samaysanayna ama dana gaar aan oofsanaynaa annagaa isku talagelayno ama hana la xalliyo ummadda soomaaliyeed waxay qaadatay hana la siiyo waa qaanuun uu dalka leeyahay waa shay kuu furan jajeelaa ku xigsaday waa dad gobolka kula degan hal maalin hiiraan ma dhihin ayagoo jajeelo ahay shir tageen ayagoo gaaljecel ay shir tageen waxay tabanayaanna waa la siiyey waa la xalliyey wixii loo heli karay markaas dhibaata kama taagna dowladooda ay dhexda ka galeen way la shaqeeyaan way la shaqeeyo hayna la hadda adoo 4 sano dadkan ay ku afduubnaayeen oo hogaaminay maanta sababta u taagan tahay maxay tahay haddiiba la yiraahdo cali guudlaab iscasilo oo iscasilo oo lagu yiraahdo adag kaale ku tartana madaxweyne ka noqon lagu yiraahdo yaad hogaaminaysaa qaabkay ugu hogaaminaysaa anigu aamin aniga shalay wiilkaaga qaabka kuula shaqeeya aan garan weyne oo aad riclaha iyo lugaha ku dhaganeed maanta kii kale walaalka ahayo ilaahay calaf ugu daray oo adiga aad u codayso soo saarto codkaada ku soo baxay ku dhagantaada ma soo digi karo biri haddii soo baxdo say rabaa ay kugu aaminaa marka aan kuula shaqeynaa rabtaa وريا إلهي يقان رسولك والواليال وسمان ضد إسلام هين وضد دلانينو قبل كان إيدجان كان جوض الحين وأنا أبتي أي سنة هين ميانا إسقف سنكرين ميانا حشوني ميانا دين تقطع عن مركان ما إسقف سجيبان ويني ميانا وحسوشيك كرينا سوشيك كرنا دمته ورسان حل معها خير أودي وحسكف فلا سان حل معها dadkan reydka oo maalin kasta la dhibaayo oo la dilaayo oo la dhaawacayo annagay nala dhasheen waa dhiigayna ma ogolin reer hiiraanahay waa ka danqanayna waan ka xunahay haddana system ay ku dhinteen ama ay ku dhaawacmeen oo maanta aan sheegi karno aysi jirin qodob loo cuskaday oo dalka u leeyahay ka mid maaha sharciyan dastuurka dalka oo ummadda ku heshiisay iyo kan ilaahayna siiyo diinta islaamka midna raalle kama aha waxay ku dhinteen maxaa lagu dilayaa lagu dhaawacaya waa dulun war dadkan siyaasiyiinta ah ee aan maxaan ku yiraahdaa idin maqnayna waxbana idin qabanayna iska qabta walaalayaal soo dad dhan oo dhaqan oo islaam ah oo walaalo ama yidin soo dad professor oo wax bartiyo jira ma yidin dadkan iska qabta ummadda wax la cuna la noolaada هالذين هجامية وحجامية صد السنة وضد كان ذيك هجاميني مرة واحد كوه هجاميني سن حنقول هذا ما ملات كوه هجاميني سن مرة واحد كوه هجاميني سن هجامي كوحد وعير ودك ديدي سملا هينو ما مل قبلت كي الضوحة هذا سمايستي هذا نعيد كهورتي مد ملك ولا يقولوا شقي قلالات كي ليه ينتبهوا نقول ماي waxay geysteen dib ugu noqon maayo hal maalin cidkaa hortimid oo kuma caarada ma jirto wax xaqaldanaada ha saxnaadana waxaa la timid waa lagugula shaqaynayo gobolkan adaa madax ka ahaa hal maalin lagama hor imaanayn 4 sano inay u dhammaato wixii kaa maqan aad leeqdo shalay dadka hogaaminaysa 4 sano kale aad soo booddo maxaa ku diiday ma soo bixi kartid 4 sano soo socotana leeva ma dhici karto sababtoo dad la aamini kara ma aydin sidaan kugu aaminaynaa 4 sano soo socota haddii ay dhacdo inaad madaxweyne noqoto reer joohorna waa go-ayaan annagana waa idin diidnay bas wallahi waa ka allah sababtoo waxaan dad aan aamini karna ma aydin adinka kaligiin ma madaxweyne iska noqonayo ma tabaan ka soo bilow intana bondolile qad ku keen intaas ma madaxweyne ka noqonaysiin oo waliba laamiga wixii midig ka jira war aqliga ha shaqeeyo war maskaxda ha shaqeyso dalka annaga iska leh waana deeqaa maanta noqo biri aan noqdo saada walaalkeen ha noqdo waa mid nagu filan oo na anfaca dalka maamulka waa mid nagu filan
caqabadan iyo dadkaani dhallinyaradan maalin kasta la dhibaataynayo oo dhagaha wax looga sheegayo oo maxaan ku idhaahdaa aan waxba kala garanin walaalayaalow nama anfacaanay dhibka ka daaya hiiraan xabad bush bac dhig qab ma u ogolin waa ceeb ma yeeli wayseen kolba ana iga qaadan maysaane dad iga aqli badan oo iga garaad badan oo iga cilmi badanaad ka qaadan weyseen oo idiin sheegay waa diideen anigana si igaan lamid ahay oo yeeli maysaan hal mid ku ekaada marka adoo xawaadla ah wixii samaysanay samayso hiiraan noo daa bas intaas bifadlikum asaxaan noogu fala hiiraan adinka ma lihidiin 60 kilomitir oo isku weer aa ka degan tihiin ma lihidiin waa ladinkaga badan yahay dhaqaalaa ladinkaga badan yahay qabiilaa ladinkaga badan yahay baawar sheerinaa ladinkaga badan yahay xishoodaa ladinkaga kala haray xishoodkii ladinka xishoonay inaan la joojiyo cid walbana ma aragtay waxaad samaynaysaan ilaan adinkaa dadka cusuri geliye maxaan ku idhahdaa kiina shaqaysanayana meel kasta oo ma aragtay idinka baxsan in cusuri lagu cusuriyeysto ayaad horseedaysiin haddaad ii ogolaan ana kuma ogolaanay waay maxaa ii sheegay walaalow aday kugu roon tahay aniga aan ku dhihi karaa adigana waa kugu roon tahay waa inaad dhihi kartaa haddii la waayo ee anna wixiigan ku xilina adna waxaad hayso magaca gobolkan dhaaf waa ka soo sheekeeyey qabaa'il gadoodaa uma horreysid adoo meel cidla aad haysaa wax kaa maqan male wixiid matalaada ku lehed waa haysataa federaalkaad ka haysataa statekaad ka haysataa 4 sana dadkaan hortaagneed hogaaminaysi ood adiga saas isu haysatay cid ka hadlaysa ma jirin 4 sana nin walba ay siri 4 sana 4 sanoba ku soo marin ka dhig oo abaar ah oo nin walba intaan muxuu ahaa isu riixay 4 sana waa la idin shaqeey walaal 4 sana waa la idin shaqeey ma garatay mar daba haddaad soo wacdo ku balogaraynaya afkayga anaa iskale muwaadin baan nahay xur baan nahay xaq baan ku hadlayaa waa sadaqaysanaa kelmadayda runtaana sheegayaa ilaahay baa igu jecel cid wax iga bedeli kartana male muwaadin soomaaliyeed baan nahay soo wixinaydaa i dhegayso haddaad wax maqlayso haddaadan wax maqlaynin balooga ku diyaar ah iddaa walaalow macaana ila dhaqan haddaad diido gobolka hiiraan magaciisa ha sheegin adoo beel ah oo xawaadla maxamed ah walaalow waa isku filan tahay wixii magacaada ku duul magacaada miyaad ku kalsooneen maxawaadla isku kalsooneen anigaba shalay markaan wax tabanay anoo gaal jecel sama waxaan maxaan ku idhahdaa wixiiga dhacsanay hal maalin hiiraan ma sheegin jijaalaa kula mid ah makanna waa taasa iyadoo makanna ahay wax ka maqayinay raasino haysaa makanaan ahay waa dulmanahay waxaana iga maqanay leedahay waa loo garaabi karaa adi hiiraankan aad leedahay maxuu yahay hiiraan nabadgeli haddaadan intaas aan soo sheegnay ku qabiilkaada ku kalsoonow qabiilkaada ku kalsoonow isku kalsoonow adiga walaalna soo wax baadaan ku aragnay baq korontadii baa baxday ma rabno inaan sii badino inaan ku dheeraano ma rabno waa mahadsantihiin soomaaliyey meel kastoo aad joogtaan soomaaliya ha noolaato ha israacdo cagaheeda ha ku istaagto ilaahay barwaaqo iyo maaragtay wanaag ha geersiiyo ilaahay qalbiyadeena maaragtay ha isku soo jeediyo horumar iyo wanaag iyo walaaltinimada ilaahay hanugu beero inaan wax walba ka dhannahay oo ilaahayna siiyey oo dalkeena ceeqaaqo oo nagu filin yahay ilaahay hayna dareensiiyo ciddii qaldanna ilaahay ha soo toosiyo cadowga ilaahay ha naga qabto intaas waa iga duca allah ha noo aqbalo horey ha loo socdo annagu nabadaan rabnaa dowladnimaan rabnaa horumaraan rabnaa midnimaan rabnaa ma doonayno saaki qoloqoqob iyo dal la iibiyo iyo maxaan ku idhahda mucaarad aan micno ku dhisnayn iyo annaga waa ka soo daalnay ma rabno mucaaradka waa inuu jaha lahaadaa
mucaaradka dowlad mucaarad la-aan socon kartaa ma jirto. dowladda waa inay mucaarad leedahay, mucaaradkana waa in uu ahaadaa mid ka laxa jecel dowladda markaas talinayso, mid ugu laxa jecel dalka waa inuu yahay. maahayna mucaarad dalkii iibinayo oo qandaraas wato oo cimaaraad lacag ka soo qaatay oo kenyaati soo maray oo afrikaan madow daba socdo rabo inuu dalkan khayraadkiisii dad kale u iibgeeyo, adeerkaas mucaarad maaha, waa dulli, waa la dilayaa, waa la iska dhicinayaa, kaas ma shaqaynaayo, ma ogolin. shacabkii soomaaliyeedaan nahay, ma jeclin inaan dib u noqonno. dowladdan yaroo haysanna heerarka kala duwan soo martay, dhibaatooyinka kala duwan lasoo kulantay, hadda daruufaha adag ku shaqaynayso inay dib u laabato, xabad ay dhacdo, ummadda isqabato, annaga diyaar uma nihin. ciddii wax mucaaradaysa waa inay system sax ah oo la aqbali karo, qaanuunka dalka ogol yahay inay ma aragtay wax ku mucaarado, waxna ku codsata hadday wax tabanayso iyo hadday wax toosinay tahayba. haddii aadan la dhacsanayn systemkan ama markaas iida maandhaydu leeyahay, dowladda markaa jirto ee shaqaynayso maandhayday leedahay, ku ixtiraam 4 sano, waa 48 bilood dhexda xero. haddaadan fikirkeeda iyo nidaamka ay wado aadan la dhacsanayn 4 sano sugo, adoon lugaha ku dhegin, adoon cuuriyaaminin, adoon ummadda gumaadin, adoon waa waray dhihin, adoo qabiilay war soo duulay dhihin, adoo waxbaa inta ka baxay dhihin, adoon ummadda isu gacan gelinin. waxaad samaysaa siyaasiyow sugo 4 sano. waxaan ognahay hadda waxa ka dhacaya xamar, wax jira iyo waxaan jirin inta ka dhaxayso. siyaasiyiintiina soo hogaamisay, madaxdayni aan jecleen, shalay ma aragtayna hogaaminaysay, raalliga aan ku ahayn, aan la shaqaynay, ayaa maanta hortaagan dowladdii dhammeed oo ay ka socon laadahay. waa ceeb. qaarkooda waxay ku hanjabayaan muqdisho waa laga kala guuraya. maxaa u kala guuraya muqdisho? adaa iskale. qaarkood shalay guryo kuma lahayn, kiray deganaayeen iyo hoteello, maantana guryo dheerdheer ay ku samaysteen. war adiga maxaa u duminay? gurigaaga maxaa u duminay? haddii aad weyso kursi, ma gurigaagaad duminaysaa? waa ceeb. xaqiiqatan wax loo qaadan kara caqliga bini-aadanka aragtay ka suurogeli karana maaha. aniga dadka ma aqaansay waxay yihiin, malaha saacadihii qiyaamahanba taaganaha u maley, waaba suurkii baaba la afuufi rabaa saadaba. waxaan sax maaha. haddii caqliga bini-aadankii doorsoomay, madaxdaynay shalay na hogaaminaysay aan raalliga ku ahayn, aan u sacabtunay ee 4 sano dhamaysatay ee dalka doorasho ka qabatay, looga guulaystay, maxaa ku dhegan? maxay rabtaa? muqdisho maxaa burburinaysay? muqdisho soo adinka ma leydin. waa maxay qabiilkan la hurinaa iyo daarooday hawiyey wowdan maxay tahay? hawiye iyo daarood maxaa iska galay? xamar ma hawiyaa iskale? ma daaroodaa iskale? ma diraa iskale? madaxweynea iskale? maxaa ka galay? madaxweynaha talada haayo soomaaliya dooratay, wuxuu ku imaaday maxaan ku idhaahdaa doorashuu ku yimid. shalay waa u hambalyaysay, xilkaad ku wareejisay si nidaam ah, wadaniyad ah, wanaag badan, qurux badan. 3 bilood kadibna lugaha ku dhagtay. ceeb waay. xataa haddii aad qaabka uu wax u wado la dhici weysay, ka har, ka aamus. asagaba wuu tartamay, waa laga guulaystay, wuu baxay. hal maalin ka mid ah dowladdaasaan murigiis ma dhihin, mana duubno lagama haayo. 4 sano uu soo dhammaystay, wuu yimid musharaxan oo dhahay, wuu tartamay, ilaaha waa calfay, waa kaa guulaystay. hal maalin kuma macaaradin. adi maxaa u macaaradee? haddana la tartan. haddii ilaahay ku siiy miyaadan nagu kalsooneen? shacabkaadii shalay aad hogaaminaysay soo ma nihin annaga? haddana kuwa qabiilkaba ahaa soo ma nihin? walaalka kale oo ma aragtay xildhibaanada kale soo kasbo, annaga kuweena qabiilayba kugu shubayaane, qabiil ahaanaba kugu siinayna annaga. walaalka kale soo kasbo. laakiin inaad qori ku hanjabtaan waa ceeb.
qori in la isugu hanjabo waa wadaninimo ma aha mas-uuliyad ma aha cilmina kuma salaysno qori wax xun waay maxamed cabdullaahi farmaajo waxaad ku sheegteen inuu yahay dictator waxaa la yidhahdaa qof aan dadka la tashanin dadka aan waxba weydiin asaga maskaxdiisa wuxuu ka helay bisi ku dhaqaaqo dictator hadduu yahay dalkan wuxuu ku adkaystay in badan inuu ka qabto doorasho qof iyo cod ah adinkaa diiday ma qaban kartidaa dhahdeen wuu tala sulay waa idinla heshiiyey madaxweynihii qaranka jamhuuriyadda soomaaliyeed waaye guddoomiye goboleedyadiis u yeeri oo yiri warkaaliya aan tashanay oo aad diiday maray kismaayo iskugu tagaan maray baydhabo iskugu tagaan maray galmudug aadaan maray garow ay dhooba yihiin intaas waxay tahay aan qadaraaska doonana dalka aan gadgadanay maana siidaysid aan la soo kulunno maxaan ku rahdaa asas afurgi abiy axmed uhuru kenyatta muxuu ahay maxaa la yidhahdaa kii cimaaraadka sacuudigaan aadna intaasoo dhan aan la soo kulunno la soo shaqaysanayna daa sidee ula shaqaysanaya arrimo gudaha tahay ama 2 gobol ah xakuntaa ama 3 gobol ah xakuntaa ade markaad la soo fariisato maxaan ku rahdaa dowladdaas oo dowladii caalamka ade markaad markaba la shaqaysato ma dal madax bannaanaad tahay madaxweyne farmaajo muxuu qabanayaa marka meesha aad aadaysa shaqada aad ka soo qabanaya waa inay dowladda dhex og tahay waa inuu farmaajo kuu saxiixo waxaan ognahay inay in badan hortaagnaayeen haddana ay hortaagan yihiin guddoomiye goboleedyo axmed madoobe shabaab oo ah shalay asoo sidiisii shabaab u ah ayuu qabsaday kenya intuu dabada la galay ayay kenya hub iyo ciidan soo siisay kismaayo u qabatay sidii uuna ku haystaa hal maalin ummadda waxa suuqi markuu shabaabka ay cimaamada watay hal maalin tacsiye kama dhiibin mana dhihin maxaan ku yiraahdaa Soomaaliya iga raali noqdo ma uusan dhihin qori afkiisu ku qabsaday qorigii sidii ugu haystaa ninkan dadda yimid dani muxuu rabaa ilaah baan kugu dhaariyay hay'adul wasaarihi qaranka u tagay wuxuu iska soo jaray guddigii doorashada Kenya la yiri 4 qof madaxweynaha hadda isku dhacsantihiin madaxweynaha annaga ma aragtay kula heshiisiinayno la imow muqdisho ana kugu casuumay madaxweynaha ana u yeerayo barnaamijkii dalka aniga waayo waxa aad tabanaysid aniga ii qor intaana laga tabanaya khilaafkaana jiro xalli baan leh wixii marka la xallin karo waan ka xallinaya anaana ka qabana farmaajo oo si direct ah ku xukuma laakiin isku ma xiree dhismaha qaranka iyo waxa idin ka dhaxeeyo isku haysaa farmaajo isma quseeyaan dadkan ugu soo darwo waa diiday wuxuu yiri gada ka soo qaad ciidamada oo gada ciidamada ma Kenyatta ba kuwa Kenya way joogayaan kuwii lahaay ee u dhaartay ee difaacanay ma aragtay u dhimanayna waa laga soo qaadaa bal aqliga inta noocaas muxuu yahay waxay ka wada hadlayeen dani iyo farmaajo maxaa ka maqan wuxuu si toos u hoos yimaadaa dani muxuu ahay wasiirka arrimaha gudaha generaal mukhtaar toos waxa kuma hoos yimaadaa maxaa ka galay maxaan ku yiraahdaa farmaajo hadday is qabtaan oo hay'adul wasaaraha soo dhaxgali kara wasaaradda arrimaha gudaha markay is qabtaan ayuu soo dhaxgali karaa ninka la yiraahdo hay'adul wasaaraha uu soo gali karaa hay'adul wasaaraha hadii markaas xaaladooda ay adkaato waa laga yaabaa suuragal inuu si xal ah oo mutadawacnimo ah oo nabadoonnimo inuu soo dhaxgalo madaxweyne maxamed farmaajo hadiiba teetalkaadii aad aqooninood ka weyn tahay oo shaqadaadii baad aqoonin dhibaato inteeda ka weyn way tanna haysato maanta u socon la'aanayna waa intaas bifadlakum in la isfahmo waa muhiim Soomaaliyay dhibaatana ma anfacdo wanaagana deeqo dalka annaga iskale wuu nagu filin yahay maamulka annaga iskale wuu nagu filin yahay hal la isu hambeeyo ninba markiisa xeeradan ha gashto
haddii la qurmiyo maraa la qurmiyey nin walbana tii ku dhacday waa la ogaa soomaaliya wixii dhintay waaba dhinteenoo ilaahay maaragtay ha u naxariisto inta caadiga u soconaysay inta laangaraha badan tirakoob ma ku samaysan waa xeeradii la isku qalaafay hadda haddii la isku qalaafana tabtii noqonaysaa cid kaaga futuxun male aabbo war nimankaa aan danteena wadin aan iska qabana soomaaliyey qabiil waxba gelin maa caaqiladaada ha xumayn allaha ku abuurtay muxuu ahay ha caragelin xabba kuguma yaalla qabiil kuwa maanta ololeynaya ama qoryaha loo dhiibanayo carruurtooda baahiyay la seexataa kuwa oo maaragtay qoryaha sitane qaad loo soo qaado habar looga soo qaadaa lagu maaweeliyaa ilmahoodana way baahan yihiin ma carruurta bil fiican kuu siiyaan oo bisha lacag kugu siiyaan birri markaad daawacantana isbitaalka xataa kugu imaan maayo dadkaad ka dhalatay ee dhiig kuu shubayaa kuu imaanaya xoolo ma qabtid haddii la doona aabbaaya uga waaba dhinteen mar hore iska xayraan baaba ahayd oo waddankaaba saas kaga badan xoolo ma haysatid adigoo intaas ah oo sidaas ah ayuu bannaan cidlee kaaga tagayaa marka damba in adeerow gacaliye mid ku anfacaysa maaha soomaaliyayna ma anfacdo taasna ma anfacdo 30 sanaan kusoo jirnay nama anfacdo raalli ahaado wanaagga aan ka shaqayno wadajirka aan ka shaqayno nin walbo dalkaaga kugu filan hal weynaa hilib leh qabiil waxba ku heli mayside soomaalinimo waxaad ku weysi wallaahaadan ku helaynin anaa reer hebel ah hal xabba ku heli maysid marba waad dhimanaysaa adoo baahanaad dhimanaysaa adoo ilaahayga ku abuurtay ku caraysiyahayna waad dhimanaysaa waa laba qasaarood war haddaad adduunyadu ku qasaartay aakhiradiina qasaare kaaga horraysa xaggee u socotaa war qabiil janno idiin geyn maaya ka leexda war qof walbo muwaadin soomaaliyeed ahow allihii ku abuurtay ka baq qabiilkiis kaga tag qabiil wax uu gala ma leh waa laga maarmi waayey soo maha si maxaa la yidhi carabna ku nabadgalo ilkana wax ku xagtaan in wax lagu raadiyo adoon dadka galaafanin adoon dadka ceebaynin adoon meel ka dhac geysanin adoo shakhsiyadaada ah si sax ah qaanuunka dalka uu qabo ku bannaan bax kuna codso kuna doono waxaaga ama ku hel ama ku way haddaad weysana tanaasul sameeye dowladdaa markaa jirto ha uga caroonine tan ku xigto la sug laga yaaba birri inaad noqoto adiga qofka sabrana ilaahay wuu abaal mariyaa abaalkaada ha ka hor dhicin laakiin haddaad caro iyo ma aragtay baawar aad samaysay kibir aabba waxba ma soconayaan ilaahayna kugu garab geli maa aakhiray adduunyana waa dumaysaa waan badiyey raalli aada soomaaliyey hala sheer gareeyo reer aabbahay xawaadle labadaa mid ha ka soo baxdo inay tala sulaanay ummadooda raacaan oo waa nala dhasheen waa jecelnahay waa walaalahayne waa abti waa aysin aad ayaan u jecelnahay inaan nabad ku wada noolaano oo wayna hogaamiyeen waa ogolaanay maanta dad kale walaal ahna hogaamiye aan ogolaano oo xitaa hadday wax qaldan yihiin ama ay wax idinka maqan yihiin xitaa 4 sano daayo oo saangareeya waddada fura magaalada fura waxaa labayso walaalow qabiilkaada ku ekaw adoo xawaadla ah isku kalsoonoobe waxa kaa maqan goobo ummadan faraha ka qaad hiiraan cid maxaan ku radaa ka godoodsan ma jirto ciddii wax ka maqnaayeen xataa madaxaada u madax beeshiba intiqaaba wuxuu raad hiiraan ayaad la taagan tahay hiiraan yaa kula jiro xawaadla xataa uma dhammo waan ognahay annaga ma raba inaan hoos falaqeeyo ana diyaar muu yihi dadkayga waa jeclahay
hormaraa la rabaa wada jiraan la deeqo ma raba inaan boogo kale sii xoogo diyaar uma yihi laakiin waxa aan raba waxay tahay labadaa qodob adoo xawaadle ee goobo waxaad afkaada ku hadal oo gobolkan iyo dadkan aad afkooda ku hadlay maalin kasta aad la taagan tahay ka dhammow isku kalsoonow adiga ama waa ama hel waxaa labayso walaalow tanaasul annagana waa ku jecelnahay xaq waaye inaad tanaasushe shaliba adiga dad ma aragtay sida aad wax u wadda aan aad u jeclayn ayaa hogaaminaysay hal maalina kaama hor imaanin mana bannaan bixin wacalaykum assalaam walaal soo dhow hal maalina cid kugu bannaan baxday ma jirto afartii sana ayaa la sugaayay al'aanana hal xaba xataa ma helin ma garad ayagii ma calfanin qolo kalaa soo baxday waa inaan la shaqeeyaa caqliga waa inuu shaqeeyaa afartan sano caqliga ha shaqeeyo awooddii labaad adaa haysto xibnaha ugu badan gobolka hiiraan adaa haysto walaalow maxaa kaa maqan ilaahay ka baq afartan sano inaad tanasulaysaan iyo inaad afka xawaadla ku hadlaysaan ood qabiilkiina idinku filin yahay labadaa mid fariintaasaan u dirayaa waxaan rabaa inaan maaragtay iyadana aan hore usii maro in badanna waa ka hadlay nimankii madaxdayna hore ahay waxaan leeyahay madaxdaynay raalli ahaado qaabka aad wax ugu coddaa ma fiicno codkaad heli laheedeen adinka ayaa maaragtay isi sii seegsiinaya farmaajona fursad aad iyo aad u weyna siino haysin dahabi waxaa laga 80% ay u badnaan lahayd inuusan soo noqonin Soomaaliya ay caado u leedahay madaxweyne 4 sano ka soo taliyay inuu 4 sano damba ku soo laabto laba mar madaxweyne ma soo marin waa xeerka Soomaalida dhigayaba waa dhiig baasaan ugu shidan caanaha geelo cabayno waa hadda qofkii wanaagsanaa baa la xumaynayaaba waa tagi lahaa 80% laakiin meel uma socdo hadda adinka celiy adinka xidadaa dhulka ugu suri adinka dadku u macaaneeyay wax badanna waa qabtay uu mahadsan yahay qaabka aad wax ku wadaan wax ka bedela waa mahadsantihiin intaas idin dhaafi maayo waxaan rabaa inaan la hadlo ciidamada qaranka Soomaaliyeed jiro oo joogo howlo badan oo adeecaysiinna waan aragnaa waxa ugu badan oo hadda ma aragtay aan la hadlayno wixii iska xad walaaladaa ma aragtay sheegi doono laakiin anigu dhihi maayo madaxweynahayga waayo mudane maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo guul ayaan u rajaynayaa waa rabitaada waayo aniga tayda maha taas ciidamada qaranka gaar ahaan kuwooda xoogga dalka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waxaan leeyahay sharaftii iyo karaamadii iyo noloshii iyo dowladnimadii iyo calankii iyo diintii iyo jiritaankii ummadda Soomaaliyeed intaba adinkaa u dhaartay dhaxantana u jiifo waxaan idinka codsanaynaa saraakiil xigeenta tableyda alifleyda dhammaan waxaan idinka codsanaynaa mid kasto oo idinka mid ah waa inuu xusuustaa mar kasta intaas aan soo sheegay inuu maaragtay mas-uul ka yahay aynu ku hurdayso waa inay ka waantoobaan meel hooso mas-uul hooso oo ina adeerow ah iyo kanaa ixiga in maaragtay ay sax ahayn aadna u dhaaranin ladinkana filaynin ayaan idin xasuusinayaa aad iyo aad aa mahadsantihiin Soomaaliyey meel kastoo aad joogtaan ciddii laba iyo hal ka dhehayso waa soo qabanayaa welcome aad iyo mahadsantihiin Soomaaliya ha noolaato ha israacdo dhibaatada iyo burburka iyo qaxarka iyo qaxa iyo hooyooyinka maaragtay Ilaahay ha naga saaro waa mahadsantihiin yaa la soo qabanayaa yaa lama iyo halka dhahayo soo dhawaada
ayaa badan arkay ururse noo taliyey ayaa badana ayaa badana qof arkay axdiige noo rumoobay ayaa badana intuu arkisa qotay nacabkiisu ilmeeyey intuu arkisa qotay nacabkiisu ilmeeyey cadowgiina ka ooyey kaamirada waa kugu furaysaa intuu arkisa qotay nacabkiisu ilmeeyey intuu arkisa qotay nacabkiisu ilmeeyey cadowgiina ka ooyey ayaa badana هلا صاحب وقصوا قبل كري لاعي كور مساري طبعا ayaa badana qof arkay islaamka oo nimcooday ayaa badana ayaa badana qof arkay carabta oo adkaatay ayaa badana ayaa badana صاحب وسوق بسن لا هاي آد أياد ما سنتاي ونو مركلو جانس وقتي ما رتي سيدان كون أحسن دي إلهي رالكن نقدر دمان ولي السلام يا ملك استواد بيتان سومالي ويل أبين كوهيدين وحنادو sidaas ayaan isku ognahay waa ballanay dhammaan dadka alla hadlay hadday ahaan lahayd madaxdeennii hore hadday ahaan lahayd walaalaha reer hiiraan hadday ahaan lahayd ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed dhammaan waxaan filayaa inay gaarayso fariinto aad u sheergareeyo cid kastoo aragto videogan waa inay sii sheergaraysaa waa mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu habeen wanaagsan